al-shabaab iyo dadka deegaanka oo Hiiraan ku dagaalamay iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkaas. Dhanka kale ATMIS oo ka hortagtay weerar ugu yimid al-shabaab ayaan warbixinadan ku eegayaa, balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan kaa codsanayaa inaad soo follow garayso, sidoo kaleetana muuqaalkan aad like garayso kaba sii wanaagsan haddii aad u share garay saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhaxeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka oo xalay ka dhacay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, kaasoo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dagaalka oo ahaa mid xoogan ayaa yimid kadib markii ay ciidamada deegaanka ee macwisleyda ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen al-shabaab oo ku aadan agagaarka deegaanka Beerayabaal oo hoostaga degmada Bulaburde ee gobolkaasi. wararka ayaa sheegaya in weerarka kadib uu xigay dagaal toos ah oo dhex maray labada dhinac, waxaana mar dambe dagaalka ku biiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. sargaalka u hadlay macwisleyda ayaa ka warbixiyay dagaalkan, wuxuuna shaaca ka qaaday inay ku beegsadeen al-shabaab isla markaana ay gaarsiiyeen khasaare xooggan. ninkan ayaa sidoo kale sheegay inay dhimasho iyo dhaawac gaarsiiyeen ilaa 7 xubnood oo ka tirsan xubnaha al-shabaab ee goobta ku sugnaa. xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan, mana jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aadan weerarkaas iyo dagaalka ka horreeyay. Hiiraan ayaa ka mid ah meelaha sida weyn loogu faramaroojiyay al-shabaab, waana halka uu ka bilowday kacdoonka haatan ka socda inta badan gobolada Soomaaliya. si kastaba weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii u dambeeyay ay hakad galeen howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. dhanka kale ATMIS oo ka hortagtay weerar ugu yimid al-shabaab ayaan sidoo kaleeto warbixintan ku eegaynaa. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal qorshaysan oo ay maanta ciidamada howlgalka ATMIS ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaanka Baladul Amiin oo ka tirsan gobolkaasi. howlgalkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ATMIS ay ugu hortagtay weerar gaadmo ah oo ay doonayeen inay ku soo qaadaan xubno ka tirsan al-shabaab. labada dhinac ayaa ku dagaalamay agagaarka magaalada, waxaana ka dhacay dagaal qaraar oo ay guul weyn ka sheegatay ATMIS, kaasoo sidoo kale khasaare geystay. afhayeenka ciidamada howlgalka ATMIS Cabdulaahi Xasan Ganaale oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa ka warbixiyay howlgalkaas, isagoo shaaciyay inay ugu hortageen weeraro abaabulan oo ay al-shabaab la damacsaneyd ciidamadooda. Cabdulaahi Xasan ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkan ay ku dileen ugu yaraan 2 xubnood oo ka tirsan al-shabaab isla markaana qayb ka ahaa weerarka gaadmada ah. sidoo kale wuxuu intaas ku daray inay gacanta ku dhigeen 2 qoray iyo 130 xabbo oo rasaas ah kadib markii ay dagaalka ku jabiyeen xubnaha al-shabaab. xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan, waxaana weli dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemaya qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose. dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ilaa hadda ka soo baxay kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalkaas ay guulaha ka sheegteen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS. maalmihii u dambeeyay ayaa waxa ay kooxdan kordhisay weerarada ay ku beegsanayso ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ugu dambeeyay weerarkii khasaaraha badnaa lagu gaarsiiyay ciidanka Uganda ee Bulamareer.